asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal waa boolmoog media aad uga barateen halkan inuu idinka soo gudbiyo wararka iyo warbixinada ka dhaca dunida kooda ugu xiisaaweyn waa maalinimo talaadaha 9 bishii 6 2020 waxaanu warkeena ku bilaabeynaa dalka Kenya ayaa waxaa la sheegayaa cudurka COVID-19 inuu kor u sii kacayo sida uu sheegay xogayaha wasaaradda caafimaadka Rashid Amaan ayaa waxa uu sheegay in maanta la baaray 2,500 dad ku dhawiyada oo laga helay ayuu yiri 127 qof taasoo ka dhigan ayuu yiri inuu cudurku sare u sii kacay Kenya oo awal aad ula dagaalameysay cudurkan xirtayna dalalka ay xuduudaha la leedahay sida Soomaaliya iyo Tanzania ayaa waxa ay sheegaysaa in uu hadda cudurka iyadoo maalmihii la soo dhaafay ay khafiifiyeen coronavirus uu cudurku kor u sii kacay Rashid Amaan ayaa waxa uu sheegay inay tani sabab u tahay qaabka loo maamulay ayuu leeyahay lockdown-ka oo laga khafiifiyay dartiis ayay sabab ku noqotay ayuu yiri inuu cudurku ku faafo gudaha dalka waxaan kaloo idin haynaa madaxweynihii dalkaasi Burundi ayaa waxa uu ku geeriyooday isbitaal ku yaala halkaasi geeridan oo ayaa leeyahay mid kadis ku timi kadib marka uu ku soo booday wadna xanuun Pierre Nkurunziza ayaa waxa la sheegayaa in da'diisu ahayd 55 jir geeridan ayaa waxaa tibisay wakaaladda wararka ee dalkaasi fadlan haddii tahay markii ugu horeysay aad soo booqato channelka subscribe saar gambaleelkana afro si aad noola socotid adiga oo mahadsan haddaba dalka Iran ayaa daawadayaal commanderkii bishii January ee sanadkan ay droniska Mareykanka dileen Qasim Suleymani commanderkan oo ahaa abandulaha ugu sareeya ciidanka dalka Iran ayaa waxa la xiriirinayaa ayaa la yiri dilkiisa muwaadin reer Iran ah inuu jaajuusay amaba uu siiyay sirdoonka Mareykanka ee CIA-da muwaadinkan oo magaciisa lagu magacaabo Mahmoud Majid ayaa dawladdu waxa ay sheegtay inay ku hayso cadeemo badan inuu la shaqeyn jiray sirdoonka Israa'iil iyo kuwa Mareykanka haddaba daawadayaal waxaanu kaloo idin haynaa dalka New Zealand ayaa dadka si free ah amaba aanay lockdown saarneen oo ay si xor ah ku marayaan magaalooyinka iyagoo isugu imanaya dhammaan goobihii waaweynaa sida baararka iyo maqaaxiyaha tanoo ka dhigan ayaa la yiri inay New Zealand ka adkaatay haweeneyda halka ra'iisul wasaaraha ka ayaa shaacisay in aan wax lockdown aanu jirin asbuucii la soo dhaafay oo ay ka qaaday bandowga dalkaasi waxaanu kaloo idin haynaa daawadayaal haddaan u gudubno dalkaasi Mareykanka waxaa xaflad xasuus reeb ah loogu qabtay howl ku yaala magaalada Texas ninkii madoobaa ee la dilay George Floyd kaasoo ay ka soo qayb galeen familkiisii iyo madaxda gobolka uu uga horeeyo governorka gobolkaasi Texas ee Greg Abbott kaasoo yiri George Floyd waxa uu ahaa nin aad magac iyo maamuus ku leh bulshada dhexdeeda waxaana hadda uu noqday mid dunida oo dhan iyo Mareykan ahaanba maamuus ku yeesha waxaana uu noqon doonaa mid aan xusuustiisa ka go'in ayuu yiri qulubta reer Mareykan taasoo bedeli doonta ayuu yiri dhammaan qaababkii foosho xumaa ee u dhaqmayeen dadka cunsuriyiinta ah ayuu yiri magaalada California gobolka California magaalada Los Angeles kadib toddobaadyadii la soo dhaafo ay ka socdeen mudaharaadyo xoogan ayaa maanta oo talaado ah waxaad moodaa inay dib dadkii isugu soo urursanayaan bartamaha Los Angeles si ay u bilaabaan kacdoon kale waxaan kaloo idin haynaa gobolka Washington in haweeneyda afhayeenka oo ah aqalka baarlamaanka ee ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waa haweeneyda la yiraahdo Nancy Pelosi ayaa waxa ay xustay mar ay shir jaraa'id qabanaysay qaabkii ugu dhintay George Floyd iyada oo jilibka dhulka dhigtay muddo 8 daqiiqo iyo 46 sakiin waa boolmoog media tan iyo kulanti damo wanaagsan wassalaamu calaykum wa rahmatullahi